Salaamu calaykum caruurey, soo dhawaada dhammaantiin. Maanta waa Jimce. Ma taqaanaan caruurey fadliga ay leedahay maalinta Jimcaha? Rasuulkeenii sallallahu calayhi wasallam ku saliya idinkuna xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam. xabiibkeena ayaa inoo sheegay maalinta Jimcaha fadliga ay leedahay. wuxuu yidhi xabiibkeena rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam, khayru yawmin dalacat calayhi shamsu yawmul jimca fiihi khuliqa aadam wa fiihi udkhila aljanna wa fiihi ukhrija minha walaa taquumu asaacatu ilaa fii yawmi aljumca. caruurey, xabiibkeenu wuxuu yidhi maalinka ugu khayrka badan ee ay cadceed soo baxdo waa maalinka Jimcaha. waa maalinkii la abuuray nebi aadam, aabbihii basharka calayhi salaam. waa maalinkii la geliyey jannada nebi aadam, sidoo kalena waa maalinka laga soo saaray jannada nebi aadam ee la keenay adduunkan aynu ku noolnahay. sidoo kalena caruurey, maalinka qiyaame wuxuu dhacayaa maalin Jimco ah. saacaddu dhici mayso ayuu yidhi xabiibkeenu, maalin Jimco ah maahane. caruurey, maalinka Jimcaha ee aadka u fadliga badan, muslimiintu waxay sameeyaan, way cadaydaan ilkahooda, kadibna way meedhaan, dhar wanaagsan oo nadiif ahna way xidhaan, cadarna way isku shubaan oo udgoon ayay iska dhigaan. xilli horena waxay tagaan masaajidka salaada Jimcaha iyagoo u socda si ay ugu soo tukadaan jamaaco, khudbadda Jimcahana ay u soo dhageystaan. masaajidka waxaa la tagaa inta aan la bilaabin khudbadda Jimcaha. khudbadda Jimcahana si wanaagsan ayaa loo dhageystaa caruurey, lagumana hadhadlo. caruurey, salaada Jimce markaad masaajidka ku tukanaysid waa 2 ragcadood adigoo khudbaddii dhageystay, jamaacana ku tukanaya, imaamkuna uu tujinayo. laakiin haddii aad guriga ku tukanaysid waxay noqonaysaa salaadii duhurka ee caadiga ahayd, waana 4 ragcadood. caruurey, sidoo kalena muslimiintu salliga nebiga ayay badiyaan maalinka Jimcaha. sidoo kalena caruurey, muslimiintu waxay akhriyaan suuratul kaaf. sidoo kalena caruurey, muslimiintu waxay badiyaan dikriga Alle iyo ducada. waxaa ku jirta maalinka Jimcaha saacad laga aqbalayo ducadaada. waxaa noo sheegay xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam. wuxuu yidhi xabiibkeenu sallallahu calayhi wasallam, fiihi saacatun laa yuwaafiquhaa cabdun muslim wahuwa qaa'imun yusalli yas'alu llaaha shay-an ilaa acdaahu allah. nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, saacad ayaa ku jirta maalinka Jimcaha aan waafaqin isagoo taagan oo tukanaya, ilaahayna weydiisanaya. qofka muslimka ahi allah wuu siinayaa wixii uu weydiisto. alle waxaynu ka baryaynaa caruurey adduunyada iyo aakhiraba inuu ina xafido, islaamnimadeennana inagu nooleeyo, inaguna dilo. adduunyada kuwii liibaana inuu inaga dhigo, aakhirana kuwii jannada bilaa xisaab ku taga inuu alle inaga yeelo. aamiin dhaha caruurey. maalinka Jimcaha caruurey waa hadiyad aad u qaali oo alle na siiyey, waana ciidda muslimiinta ee usbuucii. maasha allah caruurey, fariido, allaahumma baarik.